كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. داود كسر داود برنامجك أركتية إسبدل وعد كدا وطان تلفزيونك عدك بارق أفريقيا. داود برنامج كان وحن كسر قادن دونا أرهمو إسبدل كوكينايا أذيقنا الله شهادة. ذلك الدهر الذي ترضى به. guusha iyo sida aad ku gaadhayso saacadada iyo sida aad ku helayso iyo sida isbedel ugu samayn karto sharikadaada iyo siyaabaha isbedel loogu samayn karo nidaamka dawladnimo. هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسو دواذا برنامجك أركتية إسبدل وعد كدا وطان تلفزيونك عدك بارق أفريقيا. داود waxaan ku soo guda jirnay casharadii aragtiya isbedel gaar ahaan waxaan ku soo guda jirnay casharadii ku saabsanaa sida saacadada lagu helo ee lagu gaadho. daawada maanta waxaanu galaynaa casharkii 8aad. casharkan wuxuu ku saabsan yahay talaabada 7aad ee ku gaarsiinaysa inaad saacado iyo raaxo aad hesho. daawada talaabadaas waxay tahay waa inaad yeelataa hadaf ujeedo aad u halganto inta aad nooshahay. haddii aad yeelato hadaf cad, haddii aad yeelato ujeedo cad oo maalin kasta u shaqaysato, maalin kasta u halganto inta aad nooshahay, saacada iyo raaxad helaysaa. daawada qodobkaa waxaa si toosa u sheegaya buug ay qortay Mercy la yiraahdo Happiness for no reason ama Happy for no reason. kitaabkaas ayaa si cad u sheegaya haddii aad hadaf noloshan ka yeelato kaana aad u halganto in ruuxantii raaxayo aad helayso iyo saacado. haddaba daawada qodobkan talaabadan markaynu ka hadlayno waxa ku hoos jira 3 caado ku hoos jira. 3da caado haddii aad dabaqdo oo sideeda aad u raacdo waxa la hubaa oo xaqiiqo ah ina saacado iyo raaxo iyo rayn iyo riiqaba aad helayso. haddaba caadada koowaad maxay tahay? caadada koowaad waxa weeyaan daawade waa inay iswaafaqaan qiyamkaaga, your values, qiyamka aad noloshan ka leedahay iyo waa inay iswaafaqaan waxaad maalin kasta aad samaynaysaa. maalin kasta waxaan aad qabanayso iyo qiyamka aad leedahay waa inay iswaafaqaan. daawada waxaan ula jeednaa qiyamka aad leedahay, waxaan ula jeednaa life values baan ula jeednaa. oo waa maxay? nolosha waxa kugu muhiimsan ee aad ku qiimaysaa waa maxay? nolosha waxa kugu muhiimsan ee aad nolosha wanaagsan ku qiimayso waxa weeyaan waa qiyamkaaga weeyaan. marka waxa kugu muhiimsan noloshaada iyo waa inay iswaafaqaan maalin kasta waxa aad samaynaysaa. waxaa laga yaabaa noloshaada markaad eegto inaad tiraahdo aniga noloshayda waxa ugu muhiimsan, valuega ugu weyn waxa weeyaan inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhnaado oo aan raali kaliyo. waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo nolosha waxa iigu muhiimsan waxa weeyaan caafimaad inaan ku noolaado. waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo nolosha aniga waxa iigu muhiimsan inaan power iyo awood yeesho, hogaamiye aan noqdo. waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo nolosha anugu waxaan ku qiyaasaa oo aan markaan eegayo nolosha waxa iigu muhiimsan waxaan ku qiyaasaa inaan haysto dhaqaale. daawada waxaa jira nolosha marka laga sheekaynayo qof kasta values iyo qiyam buu leeyahay. qiyamka dadku way kala duwan yihiin. qofba waxbuu nolosha ku qiimeeyaa. qofba nolosha marka laga hadlayo waxba ugu muhiimsan oo hadduu waxa helo uu oranayaa wixii iigu muhiimsan nolosheedan helay. dadka qaar waxaa laga yaabaa inay arkaan waxa noloshooda ugu muhiimsan inay caruur tahay. dadka qaar ba u yaqaana noloshooda waxa ugu muhiimsan jacayl. dadka qaar ba u arka waxa noloshooda ugu muhiimsan lacag. dadka qaar ba u arka nolosha waxa ugu muhiimsan haday helaan ay dareemayaan satisfaction and happiness ayaa waxa laga yaabaa inay arkaan inay tahay power awood.
markaa daawade haddii ay iswaafaqaan nolosha waxaad ku qiimayso nolosha waxa kuugu muhiimsan iyo waxaad maalin kasta aad samaynaysaa macnaheedu waa maxay waxaad dareemaysaa raaxa iyo sacaada haddii laakiinse ay iswaafaqi waayaan waxaad dareemaysaa cidhiidhi iyo walaac iyo warwar iyo murgaad dareemaysaa tusaale daawad aan ku siiyo waxaad tiri nolosha anu waxaan ku qiimeeyaa ilaahay raali ahaanshihiisa iyo ilaahay inaan ku xidhnaado haddii aad taa nolosha ku qiimayso bal ka waran haddii aad maalimaha ka mid a wax macsiya aad samayso maxaa imanaya waxaa imanaya macsiya marka aad samayso habeenkii markaad soo hoyato in qalbigaaga gubto ayaa imanaysa maxaa keeno qalbigaaga gubto waxaa keenay waxaad nolosha wanaagsan ku qiimeynaysay oo ahayd ilaahayna ku xidhnaatay iyo waxaa iskhilaafay maalintaa waxaad samaysay oo maalinta maxaa samaysay macsiyaad samaysay maadaamay labadaasi iskhilaafeen murgaad dareemaysaa cidhiidhi baad dareemaysaa waxaa kaloo lamid a waxaad tiri nolosha waxaan ku qiimeeyaa caafimaad bal ka waran adigoo nolosha wanaagsan waxa kuugu muhiimsan uu yahayd ku qiimaysaa caafimaad oo aad sigaar cabto ka waran mar alle markaad sigaarka cabto adigoo dhakhtarkuna inuu ku yiraha cabbin mar alle markaad sigaar saa cabto dhammayso murugaa ku gelaysa oo muruga maxay kuu gelaysaa waxay murugadu kuu gelaysaa waxaa iskhilaafay waxaad nolosha ku qiimeynaysay iyo waxaad samaysay sidaa dareedeed baa waxa la idhaahdaa qofka sacaado hadduu rabo raaxa hadduu rabo waa inuu iswaafajiyaa valueskiisa qiyamkiisa noloshan uu ka leeyahay iyo wuxuu maalin kasta sameeyo haddii labadaas isu kaa waafaqaan oo qiyamkaaga aad ku shaqayso maalin kasta wax waafaqsan oo qiyamkaaga aanad ka hor iman raaxaad helaysaa sidaa daraaddeed baa buugag aada u fara badan arintan ee aada uga hadleen buugga le the road to success oo qoray Fiyaas uu qoray si toos wuxuu u sheegayaa in runtii ay muhiim tahay in qofka ay iswaafaqaan qiyamka uu nolosha ku qiimeeyo waxyaalaha noloshiisa ugu muhiimsan iyo wax maalin kasta sameynaya taasina ay tahay keenaysa sacaadada haddii iskhilaafaanna awoor keenayso waxaan sidoo kale arintan aada uga hadlay oo runtii isna tilmaamay Stephen oo qoray buugga la iraahdo 7 caado ay leeyihiin dadka caalamka ugu saameynta badan isna si toos u sheegaya waxa kale arinta runtii isna tilmaamaya oo runtii cad isna u qeexaya buugga la iraahdo simplify your life war noloshaada fududee oo isaguna kale waa inaan iskhilaafin valueskaaga qiyamkaaga waxaad aaminsan tahay iyo waxaad qabanaysaa waxaa kaloo si toos isna u sheegaya buugga caanka ee la iraahdo toosi awoodahada qarsoon oo isna tilmaamaya inay muhiim tahay qofku inuu ku noolaado qiyamkiisa iyo valueskiisa daawada haddaba inaad iswaafajiso qiyamkaaga iyo valueskaaga iyo waxaad maalin kasta samaynaysaa waxay keensanaysaa inaad ka fogaato siraac daakhili inay nolosha in gudahaaga aad siraac ka dhex dhaco dagaal ka dhex dhaco waa ka badbaadaysaa oo dagaalka maxaa keena waxa keena haddii wax nolosha ku qiimayso iyo waxaad qabataa iskhilaafaan waxa imaada qofku inuu qalbiga ka gubta timaada oo maalin kasta markuu arko qiyamkiisa uu khilaafsan yahay isaga gubanaya damirkiisa gubaya dawada waxa kaloo idina timaada haddii aad qiyamkaaga aad ku shaqayso maalin kasta waxa imanaya inaad kalsooni hesho waxa imanaya inaad go'aamada qaadan karto sababtoo waxaad ogtahay qiyamkaagii baad mabaadi'daadii baad garanaysaa maadaama mabaadi'daadii ku cad yihiin go'aanka markiiba waad qaadan kartaa laakiinse haddaanad qiyam lahayn haddaanad values aanad lahayn mabaadi' haddaanad lahayn go'aamo ma qaadan kartid waxaa kaloo keensataa haddii aan qiyamkaagu aanay kuu cadayn ama aanad lahayn waxay keensanaysaa inaad mawaaqiftaadu isbebedelaan maalinba mer inaad taagnaato oo qofku markuu bilaa mabaadi yahay maalinba waxbuu go'aan buu iska qaataa sababtoo wuxuu ku salayn lahaa mabaadida ku salayn lahaa dee ma garanayo sidaa daraaddeed daawaday haddii aad rabto sacaado iyo raaxa inaad ku noolaato waa inay iswaafaqaan waxyaalaha nolosha ku qiimayso valueskaaga iyo waa inay iswaafaqaan iyo waxaad maalin kasta samaynaysaa valueskana waxaanu la jeednaa wax kastoo adiga kuu muhiim ah noloshan adduunka su-aal baa laga dawada inaad isweydiiso oo su-aashaas waa maxay sidee baan qiyamkayga ku ogaan karaa valueskan aaminsanahay sidee baan ku ogaan karaa daawada su-aashaas waa muhiim waxay u tahay daawade
dad badan baa jira oo qiyam way leeyihiin laakiinse ma garanayaan. ta kale waxaad ogaataa daawade adigoo qiyam iyo mabaadi leh oo values leh ayaa waxa saameyn kugu sameynaya society-ga iyo dadka kugu xeeran. markaasaad ilaabaysaa valueskaaga aad ilaabaysaa. marka inaad barato war nolosha maxaad ku qiimaysaa waa muhiim daawade. haddaba daawade waxaa halkan ku tilmaamaynaa sidee baad u ogaan kartaa, sidee baad u soo saari kartaa nolosha waxa kugu muhiimsan ee aad ku qiimayso. talaabada koowaad ee daawada aad qaadaysa waxa weeyaan haddii aad rabto inaad ogaato life values, nolosha waxaad ku qiimayso haddii aad rabto inaad ogaato, talaabada koowaad aad qaadaysa waxa weeyaan daawade waa inaad meel cidlaa fadhiisataa. buug iyo qalin waa inaad qaadataa. intaa marka aad samayso waa inaad liis garaysaa su-aalahan soo socda. su-aalahan soo socdaad mid uga jawaabaysaa. mid kasta markaad ka jawaabayso jawaabteeda waad qoraysaa. su-aasha koowaad maxay tahay? su-aasha koowaada ee soo saaraysa qiyamkaaga waxa weeyaan kow waa inaad isweydiisaa waa maxay waxa kuugu muhiimsan noloshan, waxa kuugu qiimaha badan leh ee aad isleedahay waxa haddaad hesho waxba kaama dhinna waa maxay? isweydii. ma caafimaadba? ma ilaahay xiriirkiisa cibaadadiisa? ma waxa weeyaan dhaqaala? ma waxa weeyaan reer? ma waxa weeyaan jacayl? liiskare qor dhammaan waxa qalbigaa ku soo dhaca ee isleedahay waxaa haddii aan helo waa waxa nolosha ku qiimeeyo waad qoraysaa. su-aasha labaad waa maxaad isweydiinaysaa? waxaad isweydiisaa haddii wax kasta lagu siiyo, dhaqaalahaad u baahnayd oo dhan baa lagu siiyey, caafimaadkaagu waa buuxaa, waktina waad haysataa, maxaad qaban lahayd? maanta haddii dhaqaalaha ugu fiican lagu siiyo maxaad ku qaban lahayd? waxaa laga yaabaa tiraahdo aniga dhaqaalaha ugu fiican haddaan helo dee xajkaan ku tegi lahaa. intaa markaa tiraa su-aal kalaa ku daba taala oo maxaad xajka u tegaysaa? kadib waxaad laga yaabaa inaad tiraahdaa dhici kartaa dee ilaahay baan ku raali gelinaya. maxaa halkaa ka soo baxaya? raali ahaanshaha ilaahay wuxuu kuu yahay qiyam buu kuu yahay, adiga value buu kuu yahay. waa inaad qortaa si kale aan kuugu dhigo. sida kale daawada waxay tahay waxaad tiri haddii aan dhaqaalo fiican aan helo oon xad lahayn waxaan dhisi lahaa goobo caafimaad. intaa marka tira su-aal kale aan kusii weydiinaya oo maxaad u dhisaysaa? kadib baa laga yaabaa inaad tiraahdo dan waxaan rabaa dadka masaakiinta ducafada inaan ku daweeyo. maxaa soo baxaya inaad dadka masaakiinta caawisaa qiyam bay kuu tahay. markaa daawada su-aashan waxay ku leedahay marka hore ka soo qaad inaad wax kasta haysato. kadib waxaad isweydiisaa haddaad wax kasta haysato maxaad qaban lahayd? kadib waxaad qaban lahayd su-aal kale iska sii weydiiyo waxaad tiraahdaa maxaan waxa u qabanaya? waxa kuu soo baxaa waa qiyamkaagii, waa valuegaagii. nood garayso ku qorbartaas. su-aashaa daawada markaad ka jawaabto su-aal saddexaad baad ka jawaabaysaa oo waa maxay? waxaad iska soo qaadaa inaad 80 jir aad gaadhay. 80 jir haddii aad gaadho maxaad jeclaan lahayd waqtigan aad haysato? waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo 80 jir haddaan gaadho waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo professor jaamacadeed. halkan maxaa iga soo baxay? aqoonta iyo waxbarashadu inay kuu tahay qiyam iyo value. inaad wax barataa, aqoon yeelataa, valueskaagay ku jirtaa oo qiyam bay kuu tahay. waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo anigu 80 jir haddaan gaadho waxaan jeclaan lahaa dhaqaale intaa leego millions inaan haysto. maxaa iga soo baxaya? inaad dhaqaale yeelato oo hantiile aad noqoto inay valueskaaga ay kugu jirto. marka su-aasha waxay ku leedahay waxaad iska soo qaadaa da'da 80 jir inaad gaadhay 80 years. kadibna waxaad isweydiisaa uun maxaad rabtay waqtigaa inaad noqoto? waxay naftaada waqtigaa sheegato wuxuu tilmaamayaa inay tahay qiyam naftaada ku jira oo naftaadu ay jeclay lahayd oo aad iska soo saartay. daawada su-aal kale isweydii. waxaad isweydiisaa waqtiyadii noloshaada ku soo maray, waqtigii noloshaada ugu raaxada badnayd ee sacaadada dareemaysay waqti mu ahaa? maxaad waqtigaasi maxaa sacaadada ku siiyey? waxaa laga yaabaa inaad tiraaniyo waqtiga aniga ay soo maray waxaa iigu sacaado badnaa wuxuu ahaa markii aan guursaday. oo sacaadada maxaa ku siiyey? guurkaasa i siiyey. maxaa xagga ka soo baxaya? caa'ilo iyo reer inaad yeelato inay ku jirto
qiyamka iyo valueska aad qiimayso. marka waxa kaloo laga yaabaa inaad tiraahdo waqtiyada igu qiimaha badnaa markaan xasuustay raaxada iyo saacadada aan dareemay waxay ahaayeen markii ilmaha yar ii dhashay. maxaa xagga iga soo baxaya inaad caruur yeelataa ood caruur haysataa inay tahay waxyaalaha nolosha ku qiimayso, oo caruur haddaad weydo murgo iyo walaac inaad gelayso, haddii laakiinse aad haysatana si caadi raaxaad ku noolaanayso. dawa su-aasha markaad isweydiiso haddana su-aal kalead isweydiinaysaa, oo su-aasha kale daawada maxay ku leedahay? su-aasha kale daawada waxay ku leedahay waxaad eegtaa dadka adduunkan jooga eed ugu jeceshahay eed ku dayato ee role modelka ku ah. marka sidaa u eegto waxaad isweydiisaa waa maxay sifaadka ay leeyihiin ee aad ku jeceshahay. sifaadka dadkaasi ay leeyihiin aad ka heshay waa maxay? waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo hebel baan jecelahay oo iyaa role model, waxaana ku jeclaaday qofkaasi aqoon ilaa xadkaasuu leeyahay. macnaheedu waa maxay? maxaa halkaa ka soo baxaya? aqoontu inay kuu tahay value iyo shay aad nolosha ku qiimayso. waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo hebel baan jecelahay oo ku daydaayo ninkaas waxaan ku raacay dhaqaale intaa lag buu haystaa. xagga maxaa ka soo baxay? dhaqaalu inuu kuu yahay wax nolosha ku qiimayso. markaad su-aashana waxaa ku leedahay dadka aad ku dayato intaad eegto sifooyinka aad ka heshay isla qofkaasi waa leeyahay nood garayso, waxaad tilmaamaysaa in shaygaasi uu yahay shay naftaaduna ay rabto inay hesho oo valueskaaga geli kara. dawo su-aal kale isweydii. su-aasha kale waa maxay? su-aasha kale waxay ku leedahay kaba soo qaadba, waa ka soo qaad weeye sheekadoya in lagu yiri 6 bilood kadib aad dhimanaysaa. 6 bilood kadib aad dhimanaysaa haddii lagu iraahdo waa maxay shaygaad maanta qaban lahay? macnihii waxa weyn waxaa kuu soo baxaya waxa noloshaada kuugu muhiimsan baa kuu soo baxaya. haddii maanta lagu yiri 6 bilood kadib aad dhimanaysaa waxa marka aad ku dhaqaaqaysaa waxa noloshaada kuugu muhiimsan. maqaaxi ma tegaysid, mana fadhiisanaysid, laakiinse marka maskaxda maxay ka fakaraysaa maxaa kuugu muhiimsan? waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo masaajidkan gelaya, qur-aankan xifdinaya, salaatuleyl baan tukanaya, ilaah baan cibaadaysanaya. taa macnaheedu waa maxay? nolosha waxa aad ugu muhiimsan aad ku qiimaysaa inay tahay cibaadada ilaahay. iyadina waad noog garanaysaa, waad qoraysaa. su-aal kale hadda wada halkan taala. su-aasha kale waxay ku oranaysaa waxaad isweydiisaa maalin kasta waxaad qabanayso maxaad u qabataa? subaxdii waad soo toostaa, jaamacad baad tagtaa, maxaad u tagtaa? halkana tara waxaan u tagaa dee inaan aqoon yeesho. taa macnaheedu waa maxay? aqoontu waxay kugu jirtaa waxaad nolosha ku qiimayso. ama waxaa laga inaad tiraahdo subaxdii waan tagaa, shaqaan tagaa. su-aal kala daba taala, shaqada maxaad u tagtaa? waxaa inaad tiraahdo waxaan u tagaa reerkaygaan ku masruufa. xagga maxay ka soo baxayaa? reerka iyo caa'iladaada inay qiyamka kugu muhiimsan ay tahay. waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo maye anigu shaqada waxaan u tagaa oon u tagaa isaan lacag u helo. halka maxay ka soo baxayaa? lacagtu inay qiimo gaar adiga kuu leedahay. dawada su-aasha markaad isweydiiso su-aal kale aad isweydiinaysaa. oo su-aasha kale waa maxay? waxaad isweydiinaysaa oo su-aal runtii iyaduna aada u muhiim ah. markaad nolosha ka sheekeynayso maxaad u taqaanaa nolosha sacaadada ah? maxaad u taqaanaa nolosha adigu aaminsanta isla nolosha haddaan haysto waxaan noqon lahaa qof saciida oo raaxa ku jira oo barwaaqo ku jira? waa noloshee? waxaa laga yaabaa tara anugu waxaan u aqaanaa nolosha saciidka, waxaan u aqaanaa markaan ilaahay u cibaadaysanayo oon caafimaad haysto oon caruur haysto ayaa laga yaabaa. taa macnaheedu waa maxay? qodobadaas oo dhan waxay ku yihiin waxa nolosha ku qiimayso, valueskaagii ku jiraan. su-aal kale daawad isweydiinaysaa oo waa su-aashii 9aad. su-aashan waxaa isweydiiyey Stephen baa isweydiiyey oo buuggiisa la iraahdo 7 caado ee ay leeyihiin dadka saameynta leh ayuu su-aashaas ku keenay. waana runtii su-aal aada u muhiim ah. isagoo Stephen muxuu leeyahay? wuxuu ku leeyahay waxaad ka soo qaadaa inaad ka qayb gashay janaaso, aad ka qayb gashay. janaasadii markii aad tagtay ee aad hor istaagtay ayaaba waxaa dhacay buu yidhi qofkan janaasada runtii sariirta saaran ee janaasadaba ahiba waaba adigaba. iska soo qaad haddaad adigu qofkaa maanta aad tahay, qofka janaasada aad tahay ee dhintay haddaad tahay, wuxuu ku leeyahay waxaad ka soo qaadaa
afar qof inay ka soo qayb galeen janaasadaadii, waxaa ka soo qayb galay ehelkaagii, waxaa ka soo qayb galay saaxiibka, waxaa ka soo qayb galay qofkii aad wada shaqaynayseen, waxaa ka soo qayb galay qofkii jaarkaaga ahaa ama hay-addii samafalkeed ka shaqaynaysay qofka socda. hadday afartaa qofii ka soo qayb galeen waxaa is weydiisaa maxaad jeclaan lahayd afartaa qof inay kaa sheegaan, maxaad jeclaan lahayd inay shakhsiyadaada ay ku tilmaamaan oo yidhaahdaan qofkaasi qof noocaas u ahaa, maxaad jeclaan lahayd inay sheegaan ay idhaahdaan qofkaasi waxaasuu soo kordhiyey oo waxaasuu qabtay, maxaad jeclaan lahayd inay iyagu kugu xasuustaan ay idhaahdaan waxaasuu anaga naga bedelay oo noo qabtay. waxa aad jeceshahay inay kaa sheegaan ee markaa qalbigaaga ku soo dhacaya waa waxyaalaha noloshaada ugu muhiimsan, waa waxyaalaha noloshaada ugu muhiimsan. waxaad is leedahay dadkaasi ha kaa sheegaan, marka waa qiimkaagii buu ku leeyahy, waa wixii noloshaada ugu muhiimsanaa waxa aad rabto dadkaasi inay kaa sheegaan. marka waxaa maanta ka shaqee, maalinta dhimanaysa ha sugine, maanta waxa aad rabto dadkaasi inay kaa sheegaan ee ay kugu xasuustaan iminka ka shaqeey buu ku leeyahy. dabada markaa su-aashan waxay ku leedahay si aad u ogaato noloshan maxaad ku qiimaysaa, waa inaad soo saartaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee isleedahay marka aad dhimato ha lagaa sheego. su-aasha ugu dambaysa ee qodobkan uu ku xidhmayaa waxay noqonaysaa waa inaad isweydiisaa waa maxay waxaad maalin kasta jecesha inaad ka shaqayso, maalin kasta waxaas leeda waxaa qabo ee naftaada ay ku degtaa ee raaxada ay ku dareentaa waa maxay. halaga waxaad inaad tiraahdo warniyo nafteedii waxay ku degtaa raaxa dareemaa markaan salaatuleelka tukanayo. taa macnaheedu waa maxay? xidhiidhka ilaahay inaad raaleesha ilaahay hesho waxay kuugu jirtaa qiyamka kuwa ugu muhiimsan ay kuugu jirtaa. dawada tobankaa su-aalood ayaan isweydiinay waxay kaaga baahan intaad fadhiisato inaad wada qorto jawaabahay ku siiyeena kuu soo baxay. waxaa laga yaabaa inay kuu soo baxdo ilaa 30 shay ama 40 shay baa kuu soo bixi kara ama 20 ee kuu soo bixi kara. markaad sida u qorto, markaad shay kasta qorto tira waxaas nafteedu ka heshaa, waxaas ay jeceshahay, waxaas ilaa waxaas kuu soo baxaya. liiska markaad diyaarsato ee halka aad dhigato ee liisku kuu qoran yahay, talaabadan baad u gudbaysaa si aad u soo saarto waxa nolosha kuugu muhiimsan. talaabadan maxay ku leedahay? waar waxa aad liiskaraysay 20 shay liiskaraysay ka soo qaadba intaad eegto wax kalimaadka ay ku qoran yihiin bal mid kasta fahan waxa la wixii isku noqonaya mid iskaga dhig. waxaad qortay waxa la qaar baa isku mid noqonaya. tusaale ka soo qaad waxaad qortay anu noloshada waxaan ku qiimeeyaa raaliyaasha ilaahay. haddana waxaad qortay noloshan anigu waxaan ku qiimeynayaa inaan galo jannada oo ii horseedo janno. haddana meel kale waxaad ku qortay anu noloshan waxaan ku qiimeeyaa salaad. intaasuba isku hal shay bay isku noqonayaanoo waraalaanshaha ilaahay. hal value bay wada noqonayaan oo ah inaad hesho raaliyaanshaha ilaahay. meel kale waxaad ku qortay nolosha waxaan ku qiimeeyaa anigu aan jecelahayba inaan mar kasta wax akhriyo. meel kalena waxaad ku qortay anigu waxaan jecelahay noloshaydan inaan PhD qaato. meel kalena waxaad ku qortay anigu nafta waxaan ku qiimeeyaa inaan wax akhriyo. intaasina isku mid bay noqonayaanoo waad soo koobaysaa waxaad ka dhigaysaa inaad nolosha ku qiimeyso aqoontiya waxbarashada. marka liiskii aad samaysay 20 ahaa ama ka badnaaba intaad eegto waxa la wixii isa soo hosgalaya mid iskaga dhig. dawada talaabada markaad samayso talaabadan saddexaad u gudub. talabada saddexaad maxay ku leedahay? waxay ku leedahay ashyaada aad liiskaraysay sida u kala muhiimsan yihiin u kala horeysi. sida u kala ka kuugu muhiimsan waan ka dhig, ka qofka ugu muhiimsan aniga iigu muhiimsan, caalamka ugu muhiimsan oo dhan waxa weeyaan waa raaliyaanshaha ilaahay. kaa lambar baad ka dhigaysa waan kuusii sheegaya kaasi mar kasta lambar 1 buu noqonaya. marka waa inaad liiskaraysaa waxyaalaha kuugu muhiimsan oo dhan waa inaad liiskaraysaa sida u kala muhiimsan yihiin. dawada qodobka markaad samayso talaabadan baad u gudbaysaa. talaabadan waa ta ugu muhiimsan lafdhabarka. talaabadan maxay ku leedahay? waaynu kala saaraynaa 20 shay qortay baanu kala saaraynaa. waxaanu ka soo saaraynaa 5 shay ugu muhiimsan. sideen u soo saaraynaa? 20 shay qortay baad liiska sa u soo taxaysaa. tusaalahan waxa laga inaad qortay inaad tiri nolosha waxaan ku qiimeeyaa raaliyaanshaha ilaahay. nolosha waxaan ku qiimeeyaa inaan caafimaad helo. nolosha waxa iigu muhiimsan oo ugu jecelahay baad tiri caailada reer inaan yeesho.
iyo caruur waxaad tiri nolosha waxa igu muhiimsan inaan dhaqaale helo waxaad tiri nolosha waxa igu muhiimsan waxbarasho iyo aqoon sare inaan yeesho waxaad tiri nolosha waxa igu muhiimsan inaan ummadda wax u qabto oo performance iyo waxqabad aan sameeyo ka soo qaadba 20 shayba saa u taxday ay ku jiraan kuwa hadda aynu sheegnay sidaad u kala saaraysa waxaan rabnaa shan kaliya inaad ka soo saarto 20ka saad u soo kala saaraysa waxaad soo qabanaysaa liiska kuugu horeeya number 1 raaliyaashaha baad soo qabanaysaa number 1 ka kuugu horeeya waxaad barbar dhigaysaa dhammaan 20ka shay ee aad liskarisaad hor dhigaysaa waxaad soo qabatay raaliyaashaha ilaahay waxaad ag dhigaysaa ka ku xigo caafimaad inaad heshaa waxaad isweydiinaysaa raaliyaashaha ilaahay iyo caafimaadka keebaa iigu sii muhiimsan markaad su-aashaa isweydiinayso waxaa laga yaabaa inaad shaki kaa yara galo oo siraad kala yara saari kari weydo si kalaad u dhigaysaa waxaad oranaysaa caafimaad haddaan waayo oo raaliyaashaha ilaahay helo nolosheedu raaxa ma dareemaysaa waa haa marka maxaa ku soo baxay caafimaadkii raaliyaashaha ilaahay baa muhiimsan ka markaad sidaa u soo saarto yes baad saaraysaa yes baad oranaysaa kaasi waa yes haddana talaabada labaad u gudbaysaayo qiyamka labaad oo ah inaad reer yeelato waxaad weydiinaysaa raaliyaashaha ilaahay iyo reer iyo caruur inaan yeesho keebaa muhiim ah marka saa u egto waxaa kuu soo baxaya ilaahay inuu ka muhiimsan yahay kaana isna yes baad ku ag qoraysaa yes ayaad ku ag qoraysaa ha haddana ka saddexaad baad u gudbaysaa inaan runtii muxuu ahaayey inaan dhaqaale yeesho iyo keebaa muhiima raaliyaashaha ilaahay waxaa kuu soo baxaya in raaliyaashaha ilaahay yes baad oranaysaa saasaad u wadaysaa markaad yes uu ku wada noqdo halkaasaad ka koowaad dhiganaysaa ka labaadba haddana aad soo qaadso caafimaadkii markaad soo qaado waxaad ag dhigaysaa kii ugu horeeyo raaliyaashaha ilaahaya waxaad oranaysaa raaliyaashaha ilaahay iyo caafimaadka keebaa ii muhiimsan waxaa kuu soo baxaya caafimaadka in laga muhiimsan yahay kaasi ma kuu soo baxay waxaad ag dhigaysaa caafimaadka no oo macnaheedu tahay waa laga helay haddana waxaad ugudbaysaa caafimaadkii waxaad ag dhigaysaa reer inaad yeelato inaad caruur reer yeelato iyo caafimaad keebaa ku muhiima waxaa laga markaad isqiyaasto weliba su-aal baad isweydiinaysa waxaad oranaysaa haddii aanan reer aanan haysanba laakiin caafimaadkaygu fiican yahay meena nolol fiican noolaan karayn waa ha ta macnaheedu waa maxay caafimaadka muhiim ah marka caafimaadkiiba waxaad ku qoraysaa yes haddana caafimaadkii baad soo qaadaysaayo waxaad ag dhigaysaa waxaad ag dhigtaa muxuu ahaayey lacagtii baad ag dhigaysaa lacagtii caafimaadka keebaa kuu muhiimsan waxaa laga yaabaa markiiba soo saarto dee lacag haddaan waayo laakiin caafimaad haysto dee waa noolaan karaa marka macnaheedu waa maxay dee yes caafimaadka ka fiican marka dhammaan 20kii shayba mid kasta caafimaadkii baad ag dhigaysaa marka maxaa ku soo baxaya caafimaadku 20ka inuu ugu fiican yahay marka laga reebo ka koowaad oo runtii raaliyaashaha ilaahay oo raaliyaashaha ilaahay kama fiicna marka maxaa ku soo baxay caafimaadku dhammaan yes buu noqday marka laga reebo hal mid halka raaliyaashaha ilaahay dhammaantii wada noqday yes oo isagu dhammaan uu ka wada fiicnaaday ka markaad samaysaadin waxaad u gudbaysaa ka saddexaad oo cayladiiba waxaad ag dhigaysaa caa'ilada iyo kii koowaad oo ah raaliyaashaha keeba muhiima waxaa ku soo baxaya raaliyaashaha ilaahay marka cayladii maxaad ag dhigaysaa iyada waa laga helo waa laga fiicnaadee noobaad ag dhigaysaa haddana caafimaadkii cayladii baad ag dhigaysaa keebaa fiican maxaa ku soo baxaya caafimaadkii marka cayladii markaana waa laga fiicnaado noobaad ag dhigaysaa haddana waxaad isla eegaysaa caa'iladii iyo reerkii iyo dhaqaalihii keebaa fiican marka saad u eegto waxa laga inaad tiraahdo haddii aan reer wanaagsan haysto oo aan isjecel nahay oo aanan dhaqaale haysan meena raaxo ku noolaan karayn dawaha marka keebaa fiicnaaday caa'iladii iyo reerkiibaa fiicnaaday marka maxaa ku soo baxaya caa'iladii oo yes ah caa'iladii baa ka fiicnaatay dhaqaale halkaas idina dhigaysaa haddana caa'iladii waxaad ag dhigaysaa kii ku soo xigay caa'iladii waxbarashadii caa'ilad wanaagsan adigoo haysta iyo waxbarasho keebaa muhiima halayna ku soo baxdo dee haddii aanan waxbarasho aanan aqoon aanan lahayn lase reer fiican haysto oo wanaagsan caruur dee waa noolaan karaa marka dee reerka ka fiican marka maxaa kusoo yes baa ku soo baxay isagana saasa dhammaan u ag dhigaysaa ka marka dhamaysa haddana waxaad soo qabanaysaa kii ku soo xigay caa'ilada maxaa ku soo xigay dhaqaale baad soo qabanaysaa isna dhammaan baad hor dhigaysaa markaa liiskaad ku dhamaynaysaa marka maxaa ku soo baxaya waxaad soo saaraysaa markaa 10ka shay ee kuugu muhiimsan halkaa waxaad ka soo saaraysaa markaad sidaa liiska u qorto ayaa waxaa ku soo baxaya ka ugu horeeyo raaliyaasha ilaahay dhammaan yes buu noqday taa macnaheedu waa maxay number 1 isagaa ugu muhiimsan haddana caafimaadka baad eegtayoo
isna dhammaantii yes buu noqday marka laga tago raaliyaanshaha ilaahay oo ka fiicnaaday taana maxaad samaynaysaa isna kii labaad buu noqonaya sidaasaad u wadaysaa 10 shay ee kuugu muhiimsanaada ee yeestoodu badato 10 shay yeestoodu ugu badan tahay haadu ugu badan tahay ayaad qaadanaysaa 10 hadaa wada markaad qaadato sida ku joogi maysid waxa laga rabaa 10 inaad kala soo dhex baxdo shanta kuugu muhiimsan 10 shay aad meesha dhigtay shanta kuugu muhiimsan baad ka soo saaraysaa macnaheedu waa maxay haddana tii oo kala samaynaysayo 10kii aad soo saaratay ayaad kii koowaad soo qabanaysaa markaasaad waxaad barbar dhigaysaa kii labaad markaad aragto kii labaad iyo kii koowaad markaad ag dhigto inuu koowaad kuugu muhiimsan yahay waxaad ku qoraysaa yes ka koowaad baa igu muhiimsan haddana kii koowaad baad waxaad ag dhigaysaa kii saddexaad hadday ku soo baxdo inuu isugu muhiimsan yahay ka fiican yahay haddana meel baad dhigaysaa yes baad ku qoraysaa haddana saasad ilaa 10kaad ag dhigaysaa markaad ha ka dhigto ay haddana kii labaad soo qabanaysaa haddana kii saddexaad 10 markaad isbarbar dhigto shanta ugu yeesta bata ee iyagu ugu fiicnaada macnaheedu yes waxaan ula jeednaa waa kuwa ugu fiican iyagu iyo markasta ugu muhiimsan oo iyagu markasta kuwa kale ka horeeya shanta ugu muhiimsan baad la soo baxaysaa shantaasi daawada maxay ku noqonayaan shantaa shayba waxay ku noqonayaan shanta shay nolosha aad ku qiimayso waa shanta shay nolosha kuugu muhiimsan ee aad ku qiimayso waa shanta shay la rabo maalin kasta waxaad qabanaysaa inay waafaqaan ficil kastoo maalin kasta aad samaynaysaa shanta wayna waafaqsanaadaan hadday shantaa waafaqsanaan waayaan oy khilaafaan murugo iyo warar baad gelaysa sidaa daraaddeed daawade intaa marka aad samayso ayaad liiska shantaa soo qoraysaa ood leedahay anigu nolosha waxaan ku qiimeeyaa shantaa shay nolosha waxaan ku qiimeeyaa inaan ilaah ku xidhnaado nolosha waxaan ku qiimeeyaa caafimaad nolosha waxaan ku qiimeeyaa reer wanaagsan nolosha waxaan ku qiimeeyaa dhaqaale igu filan nolosha waxaan ku qiimeeyaa waxbarasho shantaa markaad saa usoo dhigto ayaa maxaa lagaa rabaa daawade waxaa lagaa rabaa shantaa inaad dhaqan gelisaa lagaa rabaa si kale daawadaan kuuga dhigo shantaa shay aad soo qoratay waa shanta shay aad ka samaynayso risaalada noloshan aad ka leedahay haddaad rabto inaad ogaato nolosha adduunka aad joogto waa maxay risaaladaydu waa maxay waxay tahay maalin kasta inaan qabtaa waa shantaa shay aad qiyamka ka dhigatay weeyaan shantaasuma waxaad u dhigaysaa statement oranaya shantaa shay baa nolosha ku qiimeeya tusaale ahaan qoraal baad samaynaysaa oranaya anigu waxaan u noolahay inaan ilaahay raali geliyo oon ku raali geliyo caafimaad qab oon ku raali geliyo inaan reer wanaagsan sameeyo oon ku raali geliyo dhaqaale fiican inaan helo oon ku raali geliyo aqoon inaan yeesho statementka noocaasaad qoraysaa gurigaad ku dhajisanaysaa waa statementka la rabo noloshaada inuu hagaba noloshaada dhan maxaad ku soo koobtay shanta qodobaad ku soo koobtay oo waxaad tiri anigu waxaan u noolahay inaan ilaahay raaliyaanshihiisa aan ku raali geliya ilaahay caafimaad wanaagsan caafimaadka maxaad u raadinaysaa inaad ilaahay ku raali geliso okay maxaad kaloo tiri ilaahay waxaan ku raali gelinayaa inaan reer fiican sameeyo reerka fiican iyo awlaadan maxaad u samaynaysaa ilaahay inaad ku raali geliso waxaad kaloo oranaysaa waxaan ilaahay ku raali gelinayaa dhaqaale inaan abuuro dhaqaalahan maaliyadan maalin kasta iyo shaqadaad qabanayso ee lacagtan aad soo sarso maxaad u samaynaysaa raaliyaanshaha ilaah waxaad ka oranaysaa waxaan ilaahay ku raali gelinayaa aqoon inaan yeesho maxaad wax u baranaysaa ilaahay raaliyaanshihiisa maxaa markaa kuu soo baxay wax kasta ood qabanayso valuega koowaadaad qiimeynaysa waa raaliyaanshaha ilaah kuwa kale oo dhan kaasii hoos imanaya noloshaada sacaaday dareemaysa sababtoo markaad shaqo tagto subaxii uma shaqo tegay sidoo kale inaad lacag yar intaad soo hesho iska cunto maxaad u shaqo tegaysaa ilaahay inaad ku raali geliso ajar baad ku helaysaa shaqadii aad subaxi u kacday ajar baad ku helaysaa haddaad dhaqaalaad raadinaysa ajar baa lagu siinaya reerkaagii iyo sidaad ula dhaqmaysiiyo sidaad caruurtaad u barbaarinayso maxaad ku helaysaa ajar baad ku helaysaa sababtu waa maxay ilaahay baad ku raali gelinaysaa aqoontan aad wax baranayso jaamacadan aad ku jirto dadaalayso maxaad ku helaysaa ajar baad ku helaysaa saad u helaysaa sababto hadafkaagu waa maxay ilaahay inaad ku raali geliso oo risaaladii bay kuugu jirtaa taa macnaheedu waa maxay noloshaadu waxay haysataa layn bay haysataa laynkaana waa layn toos ah raaxad maalin kasta raaxad dareemaysa xataa hadday shaqada kugu adkaato culays ay kugu noqoto oo lagu qabsado oo ninka managerkaas qabsataan ma xanaaqaysid
sababtu waa maxaanad u xanaaqeen maxaanad u dareemeen warwar waxaad ogtahay shaqadanba inaad ku raaligelinayso ilaahay ilaa ajarkaa siinayo hataa aqoonta haddaad u halganto oo lacagaad u weydo ood dhibaata kaa soo marto ma cadhoonaysid sababtu waa maxay waxaad ogtahay waxbarashada aad baranaysaba inaad ilaahay ku raaligelinayso reerkan aad wada joogtaanee xaaskaaga wax kastay kugu tira waa u dulqaadanaysaa caruurtaada waa tarbiyanaysaa waay waxaad ogtahay waxan baa hadafka ka dambeeya inuu yahay inaad ilaahay ku raaligeliso marka daawad waxaan kusoo koobaynaa haddii aad rabto noloshaadu inay meel gaadho haddii aad rabto inaad sacaado maalin kasta ku noolaato raaxa aad ku noolaato waa inaad soo saartaa waxaad noloshan aad ku qiimayso nolosha waxaad ku qiimayso hadda ma garan kartid wax xaqiiqataasi kutubta ay sheegayaan kutubta waxay dhigayaan majority of the people dadka intooda badan bay yidhaahdeen ma yaqaanaan valueskooda valueskan ka hadlaynana maaha kuwa akhlaaqiga oo keliya akhlaaqiga maaha waxaan ka hadlaynaa adigu noloshan maxaad ku qiimaysaa nolosha wanaagsan maxaad u taqaanaa markaad ogaato noloshan waxaad ku qiimayso oo wax kastood qabanaysaana ay waafaqsan yihiin raaxaad helaysaa laakiinse hadday isdhaafaan oo adigoon ogeyn baa nolosha waxaad ku qiimayso haddaad maalin kasta wax qabato maalin kasta waad gubanaysaa daawada waxaan kusoo koobinaa casharkeena maanta haddii aad sacaado iyo raaxo iyo reyreen wato aad rabto waa inaad ogaataa noloshan waxa kugu qiimaha badan leh ee aad ku qiimayso nolosha wanaagsan kadibna waa inaad kuwa maalin kasta dhaqan gelisaa taasaa ku gaadhsiinaysaa guusha iyo sacaadada intaasaan kusoo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر